adeer horta runtu waxay tahay Somaliland waa dad walaalo ah oo maqan laguna talagalay ayaguna aan aaminsanahay inay ku talagaleen sida waxay yihiin inaan lagu dhaafin xal lagu midaysan yahay la helo wixii ay tabasho qabaan laga fariisto wixii taariikh hore dhacay inaanaan ag fariisan mustaqbalka aan fiirino aan hore u fiirin waxaan shaki ku jirin Soomaali oo aan Somaliland haysanin Soomaali dhanba haddana waxaad la socotaan inuu jiro fariimo iyo dadaal ku aadan in Somaliland iyo Soomaaliya ay mar labaad isugu soo laabtaan miiska wadahadallada sidii horey culaysku u jirayna aan la ag fariisan wixii horey usoo dhacay mustaqbalka la fiiriyo laga wada hadlo waxyaabaha jira laga wada xaajoodo xal anfici kara iyaga iyo dalka intiisa kale Soomaaliya isugu timaadana diirada cusub oo aan ka hadlayna waxay ahayd wararka soo baxay oo hadda ka taabatay uu ka mid yahay haddii ay tahay arrimaha wadahadallada Somaliland in la bilaabo oo loo wajaho si dhab ah waxay u baahan doonaan in qorshe loo dhan yahay lagu galo qorshe dhankan ka yimid ama dhan kale ka yimid oo keligiisuhu ma socon doono wadahadalka bilowgiisu wuxuu noqon doonaa in loo fadhiisto qorshihii lagu gedaa laakiin waxaan mar walba aad iyo aad u adkeynayaa oo aan rabaa in dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay ka dhaga qaadaan dowladda federaalka oo uu hogaamiyo madaxweynaha Cabdullaahi Maxamed iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre annagoo wasaaradda arrimaha gudaha ah oo amuuraha hadda aad ka hadlaysaan iyo kuwa maanta meesha loo joogayba dowladda federaalka wakiil u ah waxaan jeclahay wasiirkii wasaaradda inaan idin caddeeyo waa naga dhab wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka in la soo celiyo wadahadallada Somaliland dadka walaalaha waxa ay kala tabanayaan la galo xal wanaagsan oo lagu wada qaco oo lagu midoobana laga gaaro